inaan aado dhanka sharcigan wax kala ma ahan markii laga hadlayo caruurta iyo tacadiga ku dhaca marka fiiriso shuruucda ku soo aruurtay adduunka iyo Afrika inteeda kale marka akhriso shuruuc waxa jir sharci la dhaho UNCRC oo ku qoran yihiin dhammaan xuquuqaha caruurta ay ku qoran yihiin tacadiyadan caruurta kamid oo ku dhaca qayb kamid ah looga dooday oo ay kamid tahay garaacitaanka caruurta lagu la kaco kale marka fiiriso shuruucda adduunka oo UNCRC gaas oo United Nations ay sameeyeen Soomaaliya kamaysan mid ahayn laakiin haddeertaan waxay ku jirtaa wadamada saxiixay oo hadii wixii ka dambeeyay hadii gabadfalada noocaas ay dhacaan lagu la xisaabtami doono marka sharcigaas wuxuu qorayaa UNCRC ga caruurtu bataatan inaan la garaaci karin haday noqoto discipline markii loo yimaado caruurta hala tarbiyayo markii la dhaho inaan caruurta gabi ahaan wax ula loo aan lagu garaaci karin kasoo gudub marka sharcigaas markii uu adduunka intiisa kalsaas uu qaatay haddana sharciga waa la soo daadajiyay Afrika loo soo daadajiyay Afrika markuu yimid waxa jiro gudi la dhaho African Charter oo markaas maxay dhahan arimahan asagana oo caruurta oo si gaar ah wax uu qoray Afrikaanku markay fariisteen doodihii ay ku doodeen waxa kamid ahaa inaysan macquul ahayn caruurtooda inaan la tarbiyeyn karin ilaa in la xanjafiyo maan ilaa in la dilo maan taas macnaha marka waxay ku tusaysaa hadii aan nahay Afrikaan inaan adduunka intiisa kale sida aan uga dambeyn marka fiiriso macnaha adduunka intiisa kale wadamadaas waxay la yimideen qaabkii marka caruurtaas lagu tarbiyeyn lahaa ayadoona la garaacin Soomaa anaga laakiin Afrika xoogeenan markuu isku tagay waxyaabaha laga gudbi waayo waxay noqdeen inay mar walba laga maarmaan tahay caruurta in la garaaco taasa marka waxay dhiirigelisay in caruurtu mararka qaar macallimiinta dugsi quraanada iyo iskuulada marka tagto inay ulal dheer wataan waxyaabaha ugu daran oo caruurta marka saameynta oo psychological effects ay ku reebto oo sababa in caruurtu ay ka rooraan goobaha waxbarashada iyo iskuulada ay ka rooraan waxyaabaha sababay ka mid tahay therefore marka waxaan rabnaa idea ama fakarka oo caruurta in la garaaco ama jirdil loo geysta inaan maxay dhan ka gudubno oo dadkeena inta badan ka wacyi gelino insha Allah taala waxaan rajaynaynaa jiilka soo socda iyo sanadaha soo socdo